magaalada Muqdisho taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa kulan uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxaa lagu dhiirigelinayay ciidamada booliska ee Soomaaliyeed warkaas waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Haajir Cabduqaadir Nuur munaasabadan oo lagu dhiirigelinayay ciidamada booliska oo si weyn amniga caasimada qayb ugu qaatay laga soo bilaabo bishii Ramadaan dhalashada ciidda Soonfur iyo toddobaadka xuriyada ayaa loo qabtay dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiye waxaana kamid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirro gudoomiyaha gobolka saraakiil xigeenada iyo marsharaf kale kooxda fanaaniinta booliska ee Heegan ayaa soo bandhigay suugaan ay ku dhiirigelinayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed oo qayb ka qaatay sugidda caasimada magaalada Muqdisho afhayeenka booliska Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in taliyaha uu qado u sameeyay ciidanka booliska iyo mas'uuliyiinta lagu casuumay kulanka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed uu qado u sameeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan asaga oo qadadaas ula jeeday inuu ciidanka booliska Soomaaliyeed la qaybsado fantasiyaha iyo dabaaldega wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geeli ayaa ku amaanay hoggaanka taliska sida ay ugu shaqeeyaan sugidda amniga waxaana uu sheegay in ciidanka uu salaan ugu wado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ogaalinta iyo mahadnaqa waxaan idinkaga wadaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii aad iyo aad iigu sheegay sida uu la dhacsan yahay habka ay wax u dhaceen xanaanka wax loo maamulay kaalinta ay qaadatay hay'ad la arko marka booliiska maadaama ay hayeen lafdhabarkii nabadii lagu ciiday lagu damaashaaday lagu dabaaldegay dadka Soomaaliya loo gudbiyay masawirka quruxda badan ee gudaha ka jira waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Saraakiil Guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayaa ugu mahadceliyay ciidanka booliska sida uu shaqeeyaan amniga caasimada ciidanka booliisku waxaanu iidsiinaa dadweynaha shacabka Soomaaliyeed waxaanu taaganahay shacabku inay iidaan inay jimcaystaan inay farxaan annaguna aanu shaqeyno waqtiga iidayaan ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed ayaa sheegay in garsoorka uu la shaqeeyo taliska door weyn ay ka ciyaareen sugidda dadka shacabka ee u dabaaldegay toddobaadka xuriyada dhammaanteen haddaynu nahay dadka Soomaaliyeedna waxa la inaga rabaa inaynu booliska la shaqeyno aynu gacan buuxda iyo taageero buuxda ka siino waayo iyaga ayaa amnigeena gacanta ku hayay inta Ilaahay ka waxa kaloo iyagana aan bogaadinaynaa hoggaanka ciidanka oo runtii door weyn ku leh isbedelada lagu booliska ku socda iyo dhammaan amniga dalka iyo caasimada gaar ahaan iyagana waxaan leenahay waanu idin bogaadinaynaa waanu ognahay dadaalkiina halka ka wada insha Allah ta'ala Ilaahayna idin la qabto Haajir Cabduqaadir RTN TV Muqdisho